marka caawa waxaan ka hadlaynaa buuggan la yiraahdo diiwaanka qosolka in fact bishan uu soo baxay oo markii ugu horeysay waxaan ku soo daafurnay waddankaasi Ingiriiska weekii la dhaafay in fact imikana waa weekii labaad halkan aan Imaaraadka aan ku daafurayno marka buug muxuu ka kooban yahay diiwaanka qosolka buuggan waa buug 5 qaybood ka kooban shantaa qaybood qayb ka mid waxay ka hadlaysaa sheekooyinkii qosolka iyo xigmadda lahaa الله نحرسه أو حسن الشيخ اسمه نور أو نانيس أهلايزنا الله إيش قياسك أو ها أو ذي رب رعاها ورنتي شيكوين بدن أو حكمة له أيولها وحاكلوها كل كل شيء شيكوين قصر كده دمر هم هوين كصوماليات والميل سوقي ديابي تنتسد الإسلام هذا الكي سوقي فيه رنتي هذه قرح بدن وحاكلوها كل شيء شيكوين قصر كقربها تذكر قربها تجان أما مركي وضع كوسه النقطة حيلا يكلو كل ما قصل كا وحكلو كتير شيء كوين قصل له ومرتي سجانات وطا وقبيو يماسوين وطا وقاركون نانو قانو سمي قاركون ضد كلو سمي يقولون كتيرة ومركا قصل كي سجانتي شيء كده الإسكولارو سو قرح بدن بوصاب حساير كنتي ليا بدونتي ضد كي أدليس آخر استاكله مركا بل كواسان بل حاجة هرت إن كير شيء كده نعاو لكن تا شيء قصر هو وح ده فائدة دي سؤال وده ويه ما دوني أنا هبقول ليه لكن وحيلا يقول لي بوجا وجهل دونا مركان أن كهلا يهردع يمركان كهلا يقول دقلا وحيلا يقول لي ده كي يقول يرجع لي وحلو قاعدين قصر كم حبوا لقوا قريب قصر المرتيات يقول بشيء كون قصر المرتيات أنا قصر كي سطح قيود بنوقي qaybi waxa weeyaan tan majaajilada riwaayadaha aad ku aragtaa nimanka maartay fanaaniinta ay dadka qosliya bidina waxa weeyaan sheekooyin jokeska ay qosolkeen nin badaw meel yimid iyo waxaas la kulmo waa jokeska qaarna waa qosol murtiyad oo waxa weey xikmad bay wataan oo waxay gali kareen halkii maamahado kale qosolna way leeyihiin hadaba kuwaana aan xoog saaray aan buugan isugu soo ururiyay weeyaan 150 sheeko ayaa halkan ku jira in ku dhow ilaa 10 gabay 10 suugaanadu ku jiraan maxay ahaydey aagaga Soomaalidu degtay geeska Afrika oo dhan waxa weeyaan uu ka hadlaya ilaa Djibouti ilaa Muqdisho ilaa Somaliland ilaa Puntland ilaa iyo Kenya xaga u socdo waxba kaga jira sheekooyinkaas oo faraha badan marka waxa jirta sheekooyinkan hadaba waa markii ugu horeysay waa bad cusub oo inagu cusub marka waxaan xasuustaa ilka casan la yiraahdo daalo shaqay halkan shoogan malay caawa ayaa sheeko qosol ay sheegay wuxuu igu yiri barigii ninkii hanuuniye la oran jiray hees fanaanka ayaa hees uu qaadi jiray daal aragtideeda ayaa heestii 20 hablo isku qabsanay ana leeytiri markaas ay u yeeranay yiraahdeen alli saddex kamid ah hablaha saa markaa Imaaraadka joogay inta uu yeeran baninkii ku yiraahdo war bal heesni yaa loo tiri markaas yaa khaan maxaa ka kaasa qoftaas ruuqay ahayd marka sheekooyinka ayaa lagu qabsanay imika qaar baa oran doona awoogii buu ahaa adeerkii buu ahaa marka aniga waa la sheego dadkii ii sheegay baan bahalaha isugu soo ururiyeen qoray marka taasina waa afeefo maartay وانا في فنيا هذا هيجا حده هذا قرال أيان إيجارو قصلا لفتر كذا عنك شيء أو in fact شيء كبوه كشرت ما هو شيء كم مركان إنجليز كم مرة إنه شيء أنا بريستل شغل أو شيء قصلا وياه وحلا نبى بوق لوديو مركز سلبر بوق صواخ مركز بوق جدا لبوه يقول الله مكنا ما أنت تنبته أيو كيسي كوي وربوق ما أخذ مركز سودي لحظة مرة يا بوقي markaas hada buuga afjar balbuha markaas yiri haya waan ka yaab adag haaye waxa ku tusayay inaanu akhriin balagi marka waxaan rajeeyay qaarkood aanay marka af Soomaaliga aan oran haya adag haaye ka waa af Soomaali weeyaan marka haddaan sheekooyinkii aan qaar u galo sheekooyinka qosolka way fara badan yihiin laakiin qaar baa halkan ku soo qorqortay aan maartay select gareeyay
waxaa jirta waxaan soo qaadanayaa sheeko ku saabsan ololihii af Soomaaliga barigii la dhigay ayaa waxa dhacaysa reer miyiga af Soomaaliga loo dhigay marka iyo xisaabti marka nin yarba oo isagu maartay dhalinyaro ah ayaa lagu yiri orado bal nimanka reer miyiga tuulada jooga bal ka soo dhacay xisaabta ku ka jarti ya 7 ka jar ayuu ka dhacin kara waayay markii dad tusaale soo qaaday marka soo oranay markii xero ay 7 riyaad ku jiraan ay 3 boodaan maxaa soo haraya marka wuxuu doonayaa inay yiraahdo 4 baa soo haraya mid reer miyiga gacanta taago markaas uu iga walo riyahan ka qaadaan mid boodo ka dabooday haddaba tii qurbaha haddaynu soo gallo sheekooyinka qurbaha iyaguna laftigooda aad u qosol badan waxa dhacaysa nin qaxooti lagu geenayo waddankaasi Mareykanka isagii reerkiisii ayaa guriga baranbaran meel noqonay markaas oo oonaya gabadhii guriga lahayd ay naga kiraysaa loo yeero gabadhii baa loo yeeray cadaanka ahayd markii gurigii soo gasho ayaa waxa arkaysaa 3 baranbaro sidii baabuurta ka reeskiisa eriyanaayay ayaa riddi ku jiiray markaas inta saagu booday oo Jesus markaas oo naa soo soco boqolaal Jesus baa laga buuxay isagu markaa wuxuu qaatay xaj in la yiraahdo maxay Jesus-kii ay tiri ayuu qaatay in barabarada la yiraahdo haddaba sheekooyinka laftirkooda waxay leeyihiin sheeko walba waxay leedahay hab adeegsi sida loo adeegsan karo ayaa xataa dadkan aan dee tusaaleynaa oo ma garanaysaa ay qofku u adeegsan karayo dadka waliba particularly af Soomaaliga ku cusub yahay sida maamada ay u isticmaali karayaan marka buuga la eegayo haddaan eegno mid kale fariimay wataan qaarkood oo maaha sheeko iska qosale qaarkood fariimay wataan haddaan soo qaado mid kamid ah halka iyadu fariintay wataa ay ka hadlayso musuqmaasuqa ya ay la dagaalamay oo si yar oo qosalana way ku tusinaysaa in mararka qaar dadku waxyaalaha dhici jiray haddaba nin kamid ah maamuladii dalka soo maray oo wasaaradda warfaafinta DG ka ah ama Director General ayaa waxa dhacaysa ay niman u shaxaatiyeen markaas oo oranay warbalniyahow maanta dee jaad iyo wax baan doonayaa noo qaado markaas oo oranaya waryaarihin dhageysta markaas oo aniga laba nin baa iga sareeyay markaas waa wasiirka iyo wasiir ku-xigeenka marka waa idaacadii mas'uuliyad wasiirku xayisiisyada cunaabuur wax Allah leeyahay xayisiis idaacada laga sii daayo wasiirka cunaabuur wasiir ku-xigeenkuna ogeysiisyada cunaabuur wax Allah leeyahay ogeysiis idaacada laga sii daayo wuxuu anu miskiin baan ahaa kii ugu hooseeyay baan ahaa tacsiidaha cunaabuur marka wuxuu adeer marka 6 qof oo dhintay idaacada ka baqashaan adeer marka ay kaalay marka sax qaab karaya marka waxa weeyaan sheekooyinka kale ee iyaga laftirkoodu xigmadda wata oo la yaabisid sida xigmadda ugu dhiibiyaan waxa weeyaan oday reer Muqdisho ah oo inay wiilkiisu Norway degan yahay ayaa waxa dhacaysa in wiilkiisa maalinta dambe la telefoon soo diray oranayo marka wuxuu ahaa oday maartay oday miskiin ah oo aad u fiican oo duco badan oo iimaan leh markaasuu ku oranaya aabo dee maartay gabaraan guursi soo ara war fiican ah sheegtay gabartii ay ahayd oo dhaw soo gabartaan waxay ahayd maartay soo gabar Soomaali ma gabar cadaan ah odayga gabar cadaan ah marka odaygii hadda bal sida farshaxnimada uu sheegay bal fiir sidii odayaasha Soomaalida ku muqaylin markiiba mu boodin ibadlam boodin wuxuu yiri areegaariyo waa fiican tahay guurkuna waa wax fiican ma xasata markii aan gurigeen deganeen suuqa xoolaha cidi dariskeena ma xasata markaas waa xasata cidaas iyo ahayd waa xasata duqi oo Sheekh Ali maxaas xoola ka qabiyo su'aal soo weydiinay oday markaas dibiyo lahaa markaas Sheekh Ali dibiyo lahaa hay dibigaas maxaa ugu soo bin jiray Sheekh Ali wuxuu dibigaas sacayaasha ay dadka kale u keensan jireen ugu boodi jiray marka saas lacag lagu siin jiray Sheekh Ali markaas yiri way markaas yiri war fiican waa si fiican oo xasuusta markaas yiri ma xasuusta cid waliga ma aragtay cid oo inta Sheekh Ali u timid dhahay dibigiini weeshin u dhalay qaata markaas yiri ma arag markaas igaari hadii aad dibigii Sheekh Ali Norway ka noqonaysid adle waay rutaayo xajaada faqlo taariikhdiisa iyo rag badan oo fara badan iyo oo rag iyo haweenba leh in taariikhdooda la qoro waa waxa in fact
ay ka hadlayeen Bashiir Good iyo Sheekh Maxamed Bele muhiimadda qoraalku leeyahay iyo awoodda uu leeyahay iyo taariikh ururintu waxyaalaha muhiimka ah ee aan u baahanahay in dadka lagu dhiirigeliyo runtii oo waxyaalaha runtii ay ka duulayaan bugaagtani runtii dad uguma naan talagelin inaan lacag ka samayno waxaan ugu talagalnay inaan bugaagtan dadka lagu dhiirigeliyo in fact waaba iska mashruuca tabarruca weeyaan barigii hore bugaagta dawlad bay lahaan jirtay maamuli jirtay daabici jirtay laakiin marka waa iska hawl meedan runtii laakiin waa waxyaalaha tabarruca ee Maxamed Baashe iyo rag uu la mid yahay iyo Bashiir Good iyo ay sameynayaan runtii loo baahan yahay in dadkuna ku dhiirigeliyaan marka waxa qura ee dadku ay sameyn karaan waxa weeye waa laba wax aan ka codsanayna oo ah in bugaagta ay akhristaan oo ay dadka kale ku dhiirigeliyaan akhriyaan caruurtoodana af Soomaali ku baraan iyo nin walba inuu bugaagta magaranaysaa hatta dadka aad jeceshahay inaad doonaysaa inaad haddaad hadiyad uga dhigtid bug yar buga waa qaali weeyaan runtii waxa la isku siiyo dadka aan aad u tixgeliyaa dadka bugaag hadiyad igu siiya ayaan ugu jecelahay dadka marka waxay ahayd aad baan igu dhiirigelin lahaa mar kale iyo waa aniga iyo qosolkii bal markan haddaba waxaan doonayaa inaan wax yar jawiga yar bedelo tuso waxa jirta gabaydheega ama gabay xayarka oo ah gabay inta la tiriyay oo qof si uu tiriyay intaan garanayn oo qof kalena si kale u qaatay ayaa iyadoo laftirkeeda suugaanta Soomaaliyeed qurux ku leh runtii oo wax in wax laga qoro ah marka wali waxba laga ma qorin oo aanu maan arag runtii waxyaalo badan laga qoray laakiin halkan ugu maan talagelin inaan u tafaxayto aan arintaa ka shaqeeyo laakiin bal example yar baan u soo qaatay oo laba ka mid ah oo dad kale ay sameeyeen si waxa yareen sida xariifnimada leh ayaan u soo qaatay marka mid ka mid ah ayaan tusi lahaa waxa jiray nin gabaya weyn caan ahaa oo Hargeysa iyo Berberiya deganaa oo la yiraahdo Cumar Australia oo gabaya weyn ahaa ayaa wuxuu u tiriyay gabay geela ku amaanayo iyo Soomaaliya sida geela u dhaqatay iyo sida uu fiican yahay iyo waxaas ay ku amaanayaan marka waxa jirtay Allah u naxariistay Cumar Australia in gabaygiisa geela uu ka daba qaatay nin kale oo Allah u naxariistay oo la yiraahdo Ismaaciil Rusheeye oo isna reer Hargeysa oo isna nin bacad mushtari ahaa oo Hargeysa masaajidka weyn Hargeysa ku yaala masjid jaamaca waa ninka awlaadiisa iyo dhistay ee loogu magac daray ninkaas isna maqaaxi uu ku lahaa Hargeysa oo karaacinka karin jirtay karaacinka intaan garan maraqii karaacinka ayuu gabaygii geela ee uu tiriyay Cumar Australia karaacinku waxa weeyaan intaan garanayn de lafahan maartay minjaha ariga marka deynta lagu rido maartay la kariyo maraq laga dhigo ayaa maraq macaan buu ahaan jiro aad loo maartay bariyahan wax cunaa ma arag marka roodida aad loogu cuni jiro aad baa loo karin jiray marka Allah u naxariistay Ismaaciil Rusheeye baa mushirbaha marka maqaaxi caan ahayd oo Hargeysa ku taalay bariga horeeto oo marqa karaacinka aad ku ahayd ayuu gabaygi geela ayuu intu dheegto oo bedelo ayuu wuxuu u bedelayaa karaacinkiisa uu bedelayaa oo halkii uu geela ku sheegay maqaaxidiisa ku sheegaya halkii uu marqii ka hadlay caanihiina wuxuu ka hadlayaa marqii karaacinka marka laba tudco yar yar oo aan ka soo qaatay oo ku jira balada eega marka kii horena waa intusaya ka kalena bal sidoo bedelay hada eega xariifnimada marka Cumar Australia wuxuu oranayaa dool caana laga soo lisay oo yara dhanaanaaday marka aad dhadhamisaa jidhka dhididku qooyaay nin dhadhamiyay wuu garanayaa dhul ay qaboojaane waxa dhaba habeenka ninkii dhama galxoorkoodu qodxihii dhalaanimo ku golaa kaaga soo dhiciyay saas waa gabaygii horeeta tudca ku jiray Cumar Australia bal hadaba eegsidu Ismaaciil Rusheeyena maqaaxidiisii ugu bedelay iyo karaacinkii wuxuu yiri dhuuxa karaacinka iyo dhirahan qooshaayo nin dhadhamiyay wuu garanayaa dhul ay qaboojaane dhufashada malqaacada farxadii kugu dhamaataay dhumuq markaad ka siisaa jirkaba dhididku qooyaay
waxa dhaba habeenka hadii roodhi lagu dhooqo qushki dhalaanimo ku galaa kaaga soo dhacay sheekada waxa weeyaan wati ku bada weeyaan sheekada waxa weeyaan waa sheeko waxay raalaha sheekada waxa weeyaan sheekada xamar inta badan inta xamar soo martay waxa lagu ciyaari imikana kullu waa lagu ciyaaraa baan maalnaya baadka maartay xeebta agteeda ay dhalinyaradu kubadda ku ciyaarta oo balooni ku ciyaaraan marka shard bay kala dhigtaan oo lacag bay kala helaan oo koox bay u kala dhigtaan marka waxa weeye waa arrin culus weeyaan mid waa ciyaar marka lacag la dhigto balad maxad maalaysa oo kubadda la ciyaarayo marka waxa jirta nin reer Boondheera oo aweys leeyahay ay inta badan isaga xariif ma hayno kooxda ay u ciyaar jireen xaafadda maalintii dambe ayaa xaafadii kooxdii ay u galiyeen mid ba maqnaanaya gool ku dhalanaya halkii gool ba marka gushi ku raacaysa kooxda marka ninkii aweys ayaa arrintii wuxuu soo qaatay in khatar inuu yahay mufti markaan afray xamar buu galinayo accidentkeedii waa in la geliyo waa in timaado marka aweys marka iyadoo bibitaayadii la isugu yimid oo dadka sheekaysanaya buu sameynaya intuu sidii African American ka soo socdo markay martay xaragoonaya ayuu tusaaysigan ayaa oo macawsna hoosti u geeyo ay qaar ka oranayaan aweys yaa khimaanta goolas ku baxay marka gool baday naaftii maanta dhalsi marka si gool waas dhashaa laakiin saas ku dhashaa baan iska dhalay ma hamboogta marka wuxuu doonayay in la weydiiyo sidii ku dhaliyay marka say yahay aweys saayesh marka way doonayay sheekadu marka bilaabay marka si undisha soo karoos marka saan ugu jecel qolooyinkan magaalada ku dhashay undisha soo karoos antii wuxuu marka leeyahay number 12 kiba isoo laabay undisha waa aftalyaani number 11 ki ayaa isoo laadii usoo dhigtay kubaddi tartiib la xabadka lagu dishay isma dhibay fiirsaya ko odu oo dhora ay soo khaad anti number 2 ya dhora gab alusi inta subood tartiib la turna laga saartay xayawaankaas waa isku day ma soo laabayo anti waxa ku anti waa ko marka difaacu dhan sidoo maray ka shaqeynaya waqti marka wuxuu ko oo tare ah number 3 harka buuxa sahano orod lagu maray anti waa nin buuran oo ma harba ka baxo marka boordi karayo marka isaga orod ku maray wiilish marka wuxuu quarter number 4 isaga wuxuu taasahano isaga ajir la saar isaga saas baa loo qabtay oo iska dhacay wax dhuban weey boorti marka wuxuu maxaa soo haray boortiya ku soo haray goalkeeper ويش على سيدي ويش ولا صعب ويش على سيدي واحد ورا على سيدي يا بدل فيش حيوان كاس وحاس وخاطئنا بدل منه قال يبرق الروان انت ما كادغا مس انت كادغا ده انت يقول لك ده خفصان ده على فكاوي كسوفوس شكرا ساسا كل ما